sheekadii libaaxa iyo yeyda. sidee ugu dhiirateen inaad ciyaartiin? yaa tarjiinkan aniga ayaa iskale, aniga keliya ayaanu ku ciyaari karo. laakiin dadkoo dhan ayuu ka dhexeeyaa. anagan waxaa rabnaa inaan ku ciyaarno. war aniga ayaa iskale. banoonigan aniga ayaa iskale, hadda ka bilaawato. haye caruurteedii, maxaa u xanaaqsan tihiin? maxaa uu soo tagteen tarjiinka? maxaa u ciyaari weydeen? anaka midaasi waa rabnay, laakiin maxaa sameynaa? saami ayaa beerta joogay, wuuna na soo buriyey banoonigan xataa wana. maxaa uu istaajin weysena u ogolaatay? asiga wuu butacsan yahay, wuuna xoogan yahay. anaka wax waa awoodi weynay, waana ka cabsanay. laga yaabaa inaadan awoodin, laakiin haddaa isku xidhnaan lahaadeen waad awoodi lahaadeen. sidee? hadda soo baxa, waxaa u laabanaynaa tarjiinka. haddaba aan idinka sheekeeyo sheekadii libaaxa iyo yeyga. beri hore ayaa waxaa jiri jiray tuur aad u weyn. tuurkaasna waxaa ku noolaa libaax kibir badan. asiga wuu weynaa, wuuna xooganaa. xayawaanaadka dhanna way ka cabsan jireen. libaaxa wuu ogaa in ay xayawaanadoo idil ay ka cabsanayaan, sidaas darteedana mar walba wuxuu ka qaadan jiray waxay soo ugaarsadaan. ayagani wax walba ay rabaan inay soo ugaarsadaan ma aysan cun jirin, maxaa yeelay libaaxa ayaa ka qaadan jiray. isla tuurkaas waxaa ku noolaay yey. ayagani mar walba waxay soo ugaarsan jireen xayawaanada yaryar. balse ninkii libaax ahaa sida caadada ahaydba wuxuu sameeyey sidii uu samayn jiray. xitaa yeyda way ka cabsan jireen asiga, sidaasna wuxuu u qaadan jiray waxa ay soo ugaarsadaan. walban waxay kana xijiyeen aragtidiisa, maxaa yeelay asi wuu weyn yahay, wuuna xoogan yahay. noowad sheekada kadib maxaa dhacay? tuurka ma iskaga carareen? maya wiilkayga. intaas kadib ayaga waxay noqdeen kuwo aad u kaajeysan. mar walbana aad ayay u sii kaajoonayeen, sababtoo ah waxay cunaan ma haysanin. marka dambe waxay go'aansadeen inay aagaan xaakimkooda weyn si uu u kala xukmiyo ayaga iyo libaaxa. xaakimkeenow bannaanka u soo bax, waxaa rabnaa maanta inaana xukmisid. bannaanka u soo bax. iga raarina qaba, aniga waana sanaye. hadda ii sheega maxaan ii qabtaa? tuurka waxaa soo galay libaax aad u weyn oo xoog leh, laakiin asiga ma ugaarsanayo ugaarta ee anaga waxa ugaarsano ayuu naga cunayaa. maxaa sameynaa? talana sii. waxaa sameyna ma naqaano, baahi ayaana haysa. caruurteennana way baahan yihiin, waxay cunaana ma lahan. alfa, adigu waxa aad samaynaysid waa taqaanaa, maxaa yeelay firi ayaa tahay adiga. balse ma rabtid adiga inaa caqligaaga isticmaashid. quraansho badatayne bulac way jiitaa adiga. si kastuu u xoogan yahayne waad ka hortagi kartiin. yeydii waxay go'aansadeen inay dib u laabtaan.
wayna qaateen tartaaranka uu soo siiyey xaakimkooda, taasoo ahayd quraansho aruurtay weejiita bulac. waxaana bilaabay inay iskugu wacaan dhammaan yeeyda oo idil siday u koobtaan libaaxa een uga hortagaan. intaas kadib ayagu waxay bilaabeen ugaarsi. si kalsooni ku eehan ayay ugaartooda ugu quuteen tuurka dhexdiisa, waxaana imaaday libaaxii weynaa. Alva waxay soo xasuusatay tartaaranka xaakimkooda, waxayna isku diyaariyeen dagaal. waxaana imaaday dhammaan yeeyga tuurka ku nool oo idil si ay uga koobtaan libaaxa. markay is soo diyaariyeen, libaaxa wuxuu bilaabay inuu qaylisay uga cabsadaan, balse ayaga ma cabsanin ee waxay soo aadeen libaaxa. ininka maxaa idin daar ma cabsanaysiin miya? anagu kooma cabsanayno. kadibna dhammaan yeeyda oo idil waxay bilaabeen inay ku wareegsadaan libaaxa. libaaxani waa uu cabsaday, wuxuuna raadinayay meel uu ka baxo si uu uga fakado yeeydan aadka u badan. libaaxa ma uusan haysanin wax talo ah uu sameeyo, waxaana u furneed keliya inuu meesha iskaga cararo. wuxuuna bilaabay libaaxa inuu kalaal u sigto si uu u cararo. intaas kadibna libaaxa meesha ayuu iskaga tagay. intaas kadibna tuurka wuxuu noqday tuur nabad ah. sheekada waxa laga baxsan karo waa midaas soo ma ahan awoowey. sheekadaas micnaheedu waxay tahay in la cabsanin oo isla taagnaado wadajirna waxaan iskaa caruurey, mar walba waxaa la rabaa inaa isla jirtiin. fiiri waan soo gaarnay tarjiinka. hadda caruurey waad ogtihiin waxaa samayn laheedeen soo ma ah. seem isii banoonigeena. haddii aan diidane quraansho aruurtay bulac weejiita maxaa ka batimi taas? hooda iga taga, ma igu koobanaysiin dhammaantiina. waaw, in lisla jiro waa wax aad u fiican soo ma ahan awoobe. haa wiilkeygii, laakiin waa waqtigii raaligelinta. yaa raaligelinaynaa awoobe. saam ma rabtaa in anaga nala ciyaartid?